كجيرنا حياك القعيد جوابتي علمي غيب جاهلك أوجهي عيديد عقارنا والله لا درت أبو الله سي فيرست إن هالكان كتا أدريموها يا أبو لا در أبيس يهودي سابت هذه بس ماشي كلا دين اللي قال لي ماني أنت كلا كتا هذه يا عيديد أفهم موسى ماشي دين اللي قال لي نو واسكا إلهي قدرتي رئيس الوزراء عصب الصومالية أو قردو لقونا واقع دونه يا لقونا واقع مجرد لكن سعداش سيطة اللي وايه مرتو هذه السلامة دمانتين صاحبيال من البوجوكتان بديتو واسكي سنين ما انتوا واحد جس سم دقيقة واسكي باشا الله ما يهوش إنا كلا تورو كتغل لوا ميشان وحا أسوق لوا ساس لوا وحا أسوق لوا ميشان صوبت معها لابتا أسوق لوا يا marka kooramka la sugnaano anaga no maxaa la hayaa qofku soo leeyahay dhow mood ninkii jirna haya kalgacayl jid mariye jawaabti cilmiyo qays muxuu jaahilka og yahay saaxiibada sharafta leh waa idin salaamaya alaabana waxaan wada qaybsanaa aragtida fiican fikirka wanaagsan ee fog oo cilmiga uu ku dhisan yahay xaaladda dalkeena Soomaaliya halka ay mareyso iyo waxan nagu haboon annaga ama waajibku inaga saaran yahay inaan ka hadalno marka hore waxa xusid u baahan marka habeen walba live soo fariisano ama barnaamij sports aan ka sheekeyno ujeedada aan u soconno targetka hadafka aan leenahay wax kale ma ahan maadaama meedii horta ahaa ee Soomaali lahayd qaar lacag la yeeshay qaar lacag la siiyay qaar la handaday ma jirto shacabka Soomaali ani ma dhahay kulli Soomaalina ay u xiran laakiin Soomaalida waxa muhiim ah 20 qof markay fadhi ku dir ku fadhiyaan hal qof haduu kula socdo isaga gaarsiinayo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa mar walba inaan wadaagno afkaarta fiican Soomaalinimadan inay nagu weyn tahay waxaan kale u tacsiyeenayaa oo aan dabcan hilmaami doonin oo ujeedada ugu weyn balkan u imaad ay tahay Soomaalidii ehelkooda iyo qaraabadooda ay ku dhinteen weerarkii New Zealand ee labada masaajid ayaan leeyahay horta marka hore Ilaahay intaas dhimatana ee muslimiinta iyo Soomaalida gaar ahaan anigu special Soomaalida iyo muslimiinta kale Ilaahay jannada firdawso xaqa meel fiican buu horta ugu yimid oo beedka Allah xaqa ugu yimid Ilaahay jannada firdawso ka waraabiyo dadkaas taas waa qodobka labaad waad aragteen maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha gabadha ka shaqeysa Nasra Bashiir waxay soo gelisay barteeda Facebook-ga in dawladda Soomaaliya qaasatan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay sameynta dib u dhisidda ama dib u yeelidda ciidanka qaranka Soomaaliya hadda waa qoraal aniga aan soo sheergarey oo ku arki karta bagayga Facebook-ga aan ku leeyahay gaarka ah walaashay Nasra marka waxay taagan tahay iyada xukuumadda wasaaradda gaashaandhigga waxay ku mashquulsan tahay ururinta kulaha iyo diiwaangelinta askarta si loo taabageliyo si toos ayna u qaataan mishaarkooda hadda oo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay shaqeynayaan wax ka badan 2 sano ayay hadda dawladda Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga Nasra Bashiir Facebook-ga ka arki kartaan waxaan idin sheegayo wax sax ah waxay taagan tahay Nasro wasaaradda gaashaandhigga ay ku dhawaaqday maanta bilihii ugu dambeeyay waxaan mishaar ciidanka Soomaaliya u qaadanna waxa ugu weyn batri waxa ugu weyn batri in ciidanka Soomaaliya la diiwaan gelinayo iska xareeyaan jaziira iyo xarumo kale oo halka ay ku falanqeysa marka anigu Nasra warkeeda waa runteed oo talafar lagu ma haayo laakiin sababaha inaan mishaar la qaadan sababaha shabaabku hadda weerarka u badiyeen sababaha oo khilaafka iyo sababaha dadka ay u quusteen ayaan rabaa inaan 2 eray halkaan ku soo koobo haduu eeb saamaxo ama ii suurta gasho in yar oo kooban waxa soo jiitamayay waayii ugu dambeysay khilaaf siyaasadeed ama villa Soomaaliya ka socday waayii ugu dambeeyay guga siyaasadeed laga maqlaayay hawada sare ee villa Soomaaliya labada xafiis ee prime ministerka iyo president-gana
shaqaalaha u shaqeeya kuwa ugu sarsareeyana dabcan shaki weyn ayaa soo kala dhaxgalay wax kale la iskuma haysto dagaal kale kama dhaxeeyo dowladnimada see kusii horumarnaa ma aha dagaalku shabaabka see ula dirnaa ma aha dagaalku shacabka Soomaaliya sidee u gaarsiinaa guulaha ay ku riyoonayeen 28 sano ma aha dagaalku dagaalku waxa weeye waxa jooga madaxweyne la doortay dabcan sida ogtihiin oo raba inuu soo laabto iyo ra'iisul wasaare soo shacbaxay oo kartidiisa muujiyay oo raba inuu noqdo qofka ugu horeeya dalka hogaamiye oo aanan diyaar u ahayn inuu sii noqdo ra'iisul wasaare dambe ama tartankaas hadafkaas uu hadan lahayn marka khilaafkooda ha iska soo jiitamo tan iyo intaad ogeedeen xasilinta oo fikirkii ra'iisul wasaaraha uu ahaa dib u xasuusiyo xasilinta fikirkii ra'iisul wasaare qeyr uu ahaa ammaanka in lagu sugo magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya horto anigu waa waxyaabaha iga cajiibiyay oo iga yaabiyay waxa kamid ah marna dowladda Soomaaliya qorsheedu kuma jiro ammaanka dalka Soomaaliya ma aha iyagu meesha ay ku noolaayeen ee Muqdisho ay ka shaqeynayaan ammaanka magaalada Muqdisho fiiri wasiirka gaashaandhigga haduu hadlayo taliyaha nabad sugidda haduu hadlayo taliyaha booliska haduu hadlayo taliyaha dhamaantood waxay taagiin ammaanka magaalada Muqdisho dowladda Muqdisho ma aha dowladda Soomaaliya waa horto tabardaradaasna way iska jirtaa xasilinta markii la unkay qodobkan dib aan ugu laabanaya ama u jilicsanayo u jaleecayo waxay tahay inaan idin xasuusiyo bilowgii taariikhda qeyra wuxuu keenay qorshe fog oo magaalada Muqdisho ammaankeeda loogu sugayo oo ciidanka xasilinta la dhaho dabcan way ku guul dareysteen in ammaanka ay sugaan marka laga reebo hooyo umul mid in la dhaho telefoon ay soo gal soo waa iska xir hadda hooyo xanuunsan in la dhaho kala wareeg ayay ku dhamaatay madaxweynaha Soomaaliya oo saaxiibadiis Fahad Yaasin iyo saraakiisha ku dhow kaashanaya ayaa u sheegay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya in qoosha qeyra oo wado aysan ahayn mid munaasaba madaxweynaha Soomaaliya sharafta karidiisa ammaankan uu sugi karin marka qayb ama fikir kale oo dheeraad ah la keen madaxweynaha taas oo asigoo aan baqaadayna wuxuu kala diray sida xukuumad amal ama garsoor amal ciidankii xasilinta oo police loo bedelay oo Saadaq John oo hadaba ka sii daro dalka aad aragtaan qeyra uu fikiray inkasto aanan xog ogaal u noqon karin qofna uusan u ahayn labadooda marka laga reebo sababaha dhabta ah ee ku tacalluqa khilaafkooda haddana waxa aan sawir karno oo waadixa waxay tahay safarkii qeyre ee Kismaayo tashuushkii rag ka shaqeeya villa Soomaaliya ee Facebook ku soo qoreen oo ay ugu gardaroonayeen ra'iisul wasaare qeyre oo villa Soomaaliya anigu sidaan aaminsanahay anigu xukun ma wado aragtideeda gaarkan ka hadlooyaa haddii ra'iisul wasaaraha uu aflagaaday shaqaale ama shakhsi ka tirsan villa Soomaaliya oo welina uu qofkaasi awood ku leeyahay villada waxay ka dhigan tahay in go'aankaasi uu yahay mid la isla wada qaatay anigu aragtideeda haddaba qeyra marka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya hadda la rabo inuu madaxweyne Farmaajo anigu aragtideeda sida la tahay xogta ayaan kaliya bidhaaminayaa mooyee بريتو هاي ويدين محاولين كاريزلو سعر ونقوة هدي ونقدنا قسم معها إنه أنا واحد شيء وخون نقضه وإسكا قدر إلهي واحد والبلا لكن عريامة ده أيام وحكي صورن كرا علماء الساينس يمارك كور رباديه لفت الكود وقت يدور رابكي معنا ويا غانا قياسته أيانا واحد كستلو كلا فهمها ما هن قسم ما إنه رابكي ما ذو قسم معها إنه واحد عاصل الربي ودعان مركا وحير أو مهمة الربعين إذا لو ذا جو خلاف كان وقدم بيه وحي السببين haddii aad ka warheysay waxa aan hadda ka hadlaayo waxa taani siyaasi haddaad ka warheyna nala jaanqaad oo waa wax jiro wixii mala ahna waa iska gooni ra'iisul wasaaruhu Kismaayo tagay isagoo la heshiiyay qeyre wuxuu la heshiiyay Axmed Islaan Madoobe oo aad taqaana in la villa Soomaaliya uu yahay shakhsiga loogu neceb yahay villada Soomaaliya hadda oo waa dhab oo xaqiiq ah villada shakhsiga loogu neceb yahay sida ay kaalmaha uu kala jiraan anigu waa ka warhayaa saaxiibadaya degan oo aan ka warhayo tolkeyga ka shaqeeyo qaraabaan ku leeyahay saaxiibaan ku leeyahay fog oo gobol kale ka yimid villada ninka loogu neceb yahay ee aan la dhageysan karin warkiisa waa Xasan Sheekh villada ninka labaad ee loogu neceb yahay waa Axmed Madoobe ninka saddexaadna waa Sheekh Shariif ma garan kara sababta madaxweyne Sheekh Shariif ex madaxweynaha Soomaaliya oo Farmaajo heerkan soo gaarsiiyay oo 6 bilood dadka baray oo u soo dadaalay oo sumcadan u keenay kursiga u keenay sabab loogu caasiyo iyo ma muuqato waase wax dhaco fasahaad siyaasadeed ayaa ii muuqdo sida Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya ee 2 jeer kursiga soo qabtay uu ka dhawaajiyay yiri fasahaad siyaasadeed ayaa muuqda waa run oo fasahaad siyaasadeed waa muuqda oo Farmaajo oo maanta 2 sano madaxweyne ah
oo aan dalkan wax la taaba kara ka qaban 6 bilood oo madaxweyne Sheekh Shariif uu dalka joogo ra'iisul wasaaraha u ahaa waxyaabo la taaba kara waa la qabtay waxay ku tusay ciidan diyaarsan dawlad diyaarsan inuu farmaajo la soo shaqeeyay hadda soo talada hogaanka guud ee gacanta ku hay wax uu qaban laayay marka taaya ku fogaanin ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya inay idin la wadaago sababta idin la wadaagaya ayaan rabaa inaan idin bidhaamiyo qeyre sababta uu u baxay ee Kismaayo uu u tagay waxay ahayd inuu ololihiisa campaign-ka oo wali uu ku dhawaaqin in uu la heshiiyo oo xal u arko xigweynadiisa gaarka ah xafiiska dadka ugu sareeyo ee xal u arkeen in la heshiiyo Axmed Madoobe sababtoo ah si loo helo taa oo looga goolay in la helo codadka ugu badan ee Jubbaland baarlamaanka kaga imaan doona 2020 qeyre fursadaas uu ka faa'iideystay haddii uusan ka faa'iideysan lahayn waxa imaan lahaa in madaxweyne Farmaajo uu taa heshiis u soo bandhigo qeyre fursadiisa way yaraan lahaayeen marka qeyre waxa lagu dabadaray hadda xogta ugu dambeysay ii sheegtay Fahad Yaasiin waa taliye ku xigeenka nabad sugidda waxaan kuu sheegay waa wax macquul ah macnaha oo qof weyn ka gudmi kara Fahad Yaasiin team Farmaajo waaye sababta safar madaxweynaha Soomaaliya Kismaayo u socdo u raacay ma ogaan kartaa oo la haray wasiirada kale la soo diray ana hadaba taas aan rabaa inaan xeer kaaga sheego horta Fahad ma quseyso maamul goboleed ra'iisul wasaare wada hadlaayo wax ka quseeyo Ilaahay uunta ma jirto wiilkaas reer oo xasan waa taliye nabad sugid ha ku xigeen ha noqdo ama taliye nabad sugid ha noqdo waa ku xigeen taliye nabad sugid laakiin wax amniga Soomaaliya iyo taliye nabad sugid waaye adigu waa garan kartaa meesha uu taliye nabad sugid ka yahay haday hadalkaygan ku bilaabo Soomaaliya ma aha Soomaaliya waa iska magacaabay dadkan Muqdisho waaye taliye nabad sugidda madaxweynaha waa Muqdisho ra'iisul wasaaraha waa Muqdisho ilaan amaanka Muqdisho ayay la tacaalooyeen dadka Soomaaliya kan joohar warka ma haya cadal celi iyo qabiilo kala abgaala isku dhex dilo warka ma haya waxa shaqadooda ma aha Muqdisho ay dawladda ka talisaa marka taliye ku xigeenkii Nisa ayaa wuxuu magaalada Muqdisho ka qaban leeyahay amnigeeda wax badan qaraxyada joogtay noqdeen dilalkii joogtay noqdeen ciidanka dawladda ayaa la qarxinooyaa iska daa shacab iyo hoteeladii milkiilayaasha hoteelada magaalada Muqdisho ayaa beec u raadinaya hoteeladooda oo ku daalay oo ku tafashay oo ku dhaqaala beelay oo ku naf waayay dhowr hoteelo Maka al-Mukarrama kamid yahay saxafi kamid yahay dib loo iibin rabaa hadda oo milkiilayaasha wana ogaa doontaan magaalada dadkii ownerka hoteelada magaaladii ay iska gadayeen hoteeladooda sabab shabaab darteed ah taliye nabad sugid wuxuu Kismaayo ra'iisul wasaare ka raaco adigu waa garan kartaa ma aha amni shaqadiisu gabal laakiin waxa loo diray waxay tahay madaxweynaha darsaday ra'iisul wasaaraha safarkiisana kuma jirin marna totally ninkii dhira Fahad Yaasiin kuma jirin waxa lagu dabadaray in meeshaas wixii ka socdo uu dhaqdhaqaaqa qeyre iyo Axmed Madoobe uu la socdo qeyre qorshihiisu wuxuu ahaa in Fahad Yaasiin uu ahaa wafdigii dib ugu laabanayay magaalada Muqdisho ee ra'iisul wasiirka amniga iyo wasiirada kale laakiin Fahad wuu haray arintan waa iska dheeraat waa la socotaan marka waxaan rabaa marka Fahad horta awad waxa iga qortaa waa taariikh waa ahad oo isniin soo galayso raggu waxay kala joogaan meeshii ugu dambeysay kala shakigu wuxuu maraa meeshii ugu dambeysay aeroportka magaalada Muqdisho darad waxa ku kulmay Taabid ninkii gobolka Banaadir hayay iyo Farmaajo ayaa aeroportka magaalada Muqdisho wada kulmay warar hordhaca waxay leeyihiin bedelka ugu dhow ee qeyre waa Taabid anigu haduu Taabid yimaado oo ra'iisul wasaare noqdo iyo haduu hadda qeyre yahay iyo hadii la keeno Maxamed iyo hadii la keeno Cali Kuluc amaankan dawladdan gabi ahaan buu ku fashilantay dib haddaan u milicsano waqtiga Xasan Sheekh waxaad ogeyd waqtiga Xasan Sheekh qarax uu dhici jiray boob waa socon jiray anigu amaani ma Xasan Sheekh iyo dawladdiisa laakiin qarax markuu dhaco waa wax dadka yaabi jireen qarax baa dhacay wuu dhici jiray qarax micneeda waa yaabi jiray wax ka wadaa waxa laga yaabaa bishi hal hotel labada bil in hal hotel la galo haddana ahad walba laga dhigay sida horyaalka Ingiriiska camal ahad walba la ciyaara hadda ahad walba la ciyaara marka Taabid hadii uu ra'iisul wasaare noqdo waxa ka mug weyn siyaasadda dawladda Farmaajo uu hogaamiyo hogaanka guud waa Farmaajo sidii wax uu hogaamiyo anigu ma aaminsan Taabid Cabdi inuu wax ka bedeli karo hadii xitaa ra'iisul wasaare laga dhigo hadda Farmaajo hadii Taabidna waxa rabaa kulli walaalkay Taabid waxaan leeyahay kulli hadii ra'iisul wasaare laga dhigo laba arin buu ku sheegayaa laba sano haysataa isbedel badan horta ma jiraayo dadku waa daaleen shabaabkana moraal bay yeesheen dawlad ciidan difaacdo hadda ay leedahay waxa aruurinaya ciidamada jasiiraha iska soo xaadiriya marka taas waxay ka dhigan tahay dawlad ciidan habaysan iyo nidaam dawladeed aynan lahayn hadda ra'iisul wasaare noqotid magaca iyo sumcadda ka sameeyay magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir historyga ka sameeyay historiga ayaa hoos kaaga dhici doonto
wasal laga yaabaa inaad ku guulaysato amniga rajadaas ma badno ana aragtideeda sababtoo ah hoggaanka ka sareeyo ayaanan u bisleen in Soomaaliya dib ay u hanato ama cageeda dib ugu istaagto taas waa ani aragtideeda waay haddii kheyre uu campaign sameysto waxa cajiib ah oo iga yaabiyay waxay tahay qolyaha fila Soomaaliya waxay marmarka qaar mucaaradnimadooda iyo waxdiidmadooda waxay dhaawacaysaa qiyaamka qofka iyo qabiilkiisa xataa kheyre isma sharaxi karo waa maxay kheyre isma sharaxi karo ma iga jawaabi kartaa kheyre isma sharaxi karo waxaan rabaa saaxiibada haddii daawanayo waxaad ii sharaxdaan kheyre isma sharaxi karo micnaheedu maxay tahay kheyre isma sharaxi karo ani kelmadaasa ani cajiib ila ah oo qolyaha farmaajo ay aaminsan yihiin ma waxay ka wadaan kheyre waa murasado isma sharaxi karo waa la fiiro ka dhashamay ka wadaan miyay sas ula jeedaan ma waxay ula jeedaan kheyre ee annagaa keensano nagama daba hadli karo naguma caasin kara may ka wadaan anigu waa garan waaye anigu haddaan ka jawaabo kheyre waa is sharaxi karaaho laba arrin oo isu sharci kara horta kheyre waa nin ka dhashay karan la hawiye oo curadkii hawiye oo looga dambeeyo talada hawiye waaye anigu hawiyahan ka dhashay kullay raashin ma taaban karno kheyro tolkiiso meesha fadhinin anigu waxba ma taaban karno waa si ismu caarad karna aniga kheyre mooye hawiye dhexdiisa kullay isma mucaarad kara siyaasadna iskugu mucaarad kara laakiin kheyre waa la mucaarad karaa isaga aragtideeda kheyre isma sharaxi karo kelmadaas reer tolkey farmaajo dibay ugu laaban doontaa waana wax taariikhda ugu yaalo kheyre isma sharaxi karo waa arrin cajiib ah waa arrin iyagu kaftan ka dhiganayaan laakiin ceeb ku ah waa arrin isku soo dhawaashihii labada beel ee Mareexaan iyo Mursado isku soo dhawaadeen labadii san ugu dambeysay walaalaha ku noqdeen waa arrin si kala fogeynaysa oo xataa sababi karta in dib dambe aysan wax wada cunin ama wax ay wada sheer gareen haddii ay taas sii wadaan haddii aad rabtid in labada beelood ee walaalaha ay si wada jaan qaadaan kheyre nin fashilmo ay dhaha waa idinku raacsanahay madaxweynuhu waa fashilmay ceeb ma laakiin isma soo sharaxi karo anigu waxyaabo kale u fasiran karaa haddaan kaftamo hadda oo aanan qalad laga fahmin hadda si haddaan u kaftamo anagu farmaajo horbaran kheyre iyo farmaajo kheyrana farmaajo keenay waa sax labadan maanta Soomaali isma siistaan haddii karti la dhaho haddii dhaqaaq la dhaho inkastoo kheyre mas'uuliyadda ugu badan amniga qaadan doono sababtoo ah isaga ra'iisul wasaaraha xukuumadii wasiirka amniga isaga ka amar qaata wasiirka arrimaha gudaha isaga ka amar qaata wixii dhan isaga hoos imaadaan nabad sugidda isaga hoos imaadaan wixii dhan wasaaradda amniga hoos imaadaan laakiin kheyre ka sii amar sareeya kheyre mas'uuliyad darrada iyo falalka dambiyada dalkan ka dhacay iyo qaraxyada kulli mas'uuliyaddeedu leeyahay madaxweynahana wuu la sheer gareynaya sababtoo aragti wanaagsan oo looga gudbi kara marxaladahan adag madaxweynaha lama uusan imaan madaxweynaha waqtigiisa ugu badan wuxuu ku bixiyay Facebook ha laga amaano amiin arts hay amaano gundhig hay amaanto xasan sheekh ha la caayo sheekh shariif ha la caayo awad hergabaya sorry sheekh shariif ha la caayo dadkii ka madaxweyne siyaasadda Umar Cabdirashiid wuxuu yiri waxa joojisiin siyaasadda fasahaadka ah ani waxaan ku leeyahay siyaasadda qaar waa saqajaanimo waa siyaasadda saqajaanimada ah la iska daayo siyaasadda darbajiifnimada ha laga gudbo siyaasadda alkulistayaasha ha laga gudbo siyaasadda dad madaxeed ee 50 sano ka weyn ha loola dhaqmo dadka Soomaaliyeed xasan sheekh ha la caayo okay waxaad lacag ku bixiseen barnaamijyo kala duwan oo xasan sheekh iyo tiimkiisa lagu galaayo waxa barnaamij lacag ku bixiseen in hadda gundhig lacag ku siiseen sheekh shariif wuxuu kamid ahaa shabaab waxa barnaamij lacag ku bixiseen muqtaar robo wuxuu ahaa shabaab dadku waxa rabaa waxa rabtiin lacag ku bixiya madaxda rabtiin caaya kulli abaalkaad ergataan ayaa meel idin yaalo bari markay madax kala imaado idinkuna caay baa meel idin taalo xushmad odaytinimo meeshan ma taalo in lacag lagu bixiyo kumanaan dollar dadka hala caayo xitaa madaxda dalkan soo marta hala caayo waa wax history ah oo dadka Soomaaliyeed meel ay ku qorteen dalka Soomaaliyeedna xushmadiisa iyo sharaftiisa meel uga dhacdeen waay okay haddii hadda bari markaad kursi ka tagtaan lagu abaal mariyo ka waran weerarkii Baydhabo dadka Baydhabo wariyaasha Baydhabo u dhashay saxafiyiinta Baydhabo idinku abaal mariyaan xasuuqay ka geysteen halkan dadka galmudug degan wax waxa halkaas ka qabatay idinku abaal mariyaan dadkooda la laayay idinku abaal mariyaan hantida la boobay cali maxamed geedi salaad cali jeelay rag la mid ah hoteelada ku jiiftaan barin ila weydiyo oo waxaas lagu caayo adinku xalba u aragtaan caayo fara badan baa leedihiin ma doonayo hadda dadka idinka dambeeya madaxda idinka dambeeysa caayo aflagaad inay meel idinka soo fariistaan oo yeeshaan aqligiin oo kale laakiin anigu waxaan leeyahay ceebta ka daayo ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed daawanayaan waxaan rabaa inaan u sheego kuwa daawan doonaba qoladan gundhig la dhaho waa inaad fahamtaan in farmaajo oo wiilkan warbixinada sameeyo $450 ilaa $500 ilaa $600 xataa lagu siiyo marka Soomaali wax ku madaa war la qaba xiisa ma laha
haddaan ogaa in gundhig ay farmaajo biil ka qaataan oo gobolka banaadir cashuurtiisa la siiyo isagu ma shaqaysan Facebook uu leeyahay hadduu soo dhigo warbixinaan ka haya sheekh shariif ama xasan sheekh anigu automatic waa u jeedaa maxaa xiisan leedahay warbixin waxay xiisan leedahay marka aan la ogeyn cidda aad ka hadlaysay meesha u socotid haddaan ku ogaa meesha u socotid iyo cidda aad ka hadlayso wax warbixin oo qurux badan aniga ilama aha aragtideeda sidaas darteed madaxweynuhu ha ogaado dadka uu okay warbixinadan baadigoob iyo gundhig iyo waxyaabaha kale hadda la wadwado meelaha ilaa dowladii Cabdullaahi Yuusuf maxaa loo gaarsiin lahayaa ilaa dowladii Cabdullaahi Yuusuf maxaa loo gaarsiin lahayaa maxay xasan sheekh iyo sheekh shariif ugu siman tahay maxay hadda waxa socdo uga hadli laadahay hadda waxa socdo iyo dowladda Cabdullaahi Yuusuf waxbaan noo baxaya waxbaan ii muuqda waxbaan arkaa anigu waxbaan arkaa waa ceeb anigu sida aaminsanahay madaxweynaha nin qadiyad qabiil ka dambeeyay inuu yahay aaminsanahay saddex magac ilaahan ku dhaartay laakiin dadka uu ka dhashay dad nasab ay yihiin laakiin madaxweynahan sida u maleesiin ma aha waag hor midin dhigi jiray madaxweynaha waa iska nin doqora oo siyaasad aqoon hadda nin qabiilista inuu yahay iyo cad hadda example aan siinaa xasan aadan samatar oo lajana ayaa yimid eeg waxyaan ku tusaa afartan madaxweynaha Soomaaliya ku heeb ahna $5,000 ay qaataan madaxtooyada jiifan wala socod taas waa ogtiin muhiim ma aha xasan aadan samatarna hatta inuu la sheekaysto isku qoori waa inuu meel la fariisto anigu waxaan ku faraxsanahay xasan aadan samatar haddaad daawateen video uu soo dhigay sida uu amaanay qadar xeyd iyo Ismaaciil Cumar Geele sarbeeb uu ka waday laakiin anigu aadan u fahmay dad nool isagoo Muqdisho joogo inuu qadar xeyd umad celiyo xasan aadan samatar haganima ku tahay iyo wax uu adig idin tusooy aadan fahmi karnaa waay xasan aadan samatar oo Muqdisho joogo inuu dhaho qadar xeyd ayaan u mahad celinayaa eeg haddaad siyaasad fahamsan tahay waxba meesha isku jiro meesha fiiri siyaasadda masabka fiiri علشان personality aniga teeda haddaan ka hadlo markay Jabuuti ay qurxiso oo wax walba ay samayso Soomaaliya haddii laga qurxiyana waxaan ilaa dadka Soomaaliya marwada madaxweyne xitaa magaceeda ma yaqaan sidoo u bahdilan ka hela xasan samatar xitaa wuxuu leeyahay markii gadaal looga sheegay farmaajo raali ah hatta title-kiisa ma siin farmaajo raali ah cunug ciyaal xaafad camal farmaajo raali ah marwada madaxweynaha magaceeda hatta ma yaqaan farmaajo raali hadduu ruugi garan laakiin annagoona la hadlooyaa samatar meesha wax ma yaalaan waay yani fantaan waa wallahi meesha wax ma yaali waay hadalka khudbada samatar haddaad soo raa inaad computerka soo qaatay ahayd oo halkan ka shido oo sharaxnay ahayd horta inuu isagoo Muqdisho joogo uu tago halkaa Jabuuti uu mahad celin qadraxeeday waa mahadsan tahay maama fanka jecel baa tahay madaxweynaha ummadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele halkaas inuu ka amaano isagoo xamar joogo wuxuu idin tusooyaa samatar in meeshan dawlad ka jirin madaxweyne Soomaaliyeed nin u qalman oo kursigan ku fadhiyo samatar fanaan kaliya ma aha waagi hore fanaan bas ama leen jiro nin murtin wax ku sheegi karna waa yahay wallahi markuu dhahana waa taqaanaan madaxa waxbuu ka wataa anu waa ka helay samatar aad maanta u amaani karaa inkastoo samatar iyo Axmed Cali Cigaal imaanshahooda Muqdisho gilgil badan sameysay fursadda samatar way kaf iyo cigaal sorry cigaal noo jeclaa kan kale Axmed Cali Cigaal miya saas hadaan qaldaneen maadaama isagoo hadlin laakiin samatar fursad madaxweynaha Soomaaliya uga faa'iideysan kara wuu bardareeyay dagaalkooda meesha ka soo bilowday ma taqaanaan samatar iyo farmaajo ma garanaysaan wuxuu u diray wiil yar madaxtooyada joogo tikidkiisa hoo hada wallahi tikidkiisa hoo Jabuuti ka soo wad inta keen u dhaas samatar bariga cusbaayo oo khatar sidii jir waxa xasuusta ilaaha soo diray la dhijir bariga shaydaan soo diray moogi hadkiisa bariga dhijirina ka hadla maalintii dhijir ilaaha soo diray farmaajo hadda ma dhaha hadda way xishooday dadku dad dhiig la waa mugta iyagii hadda ku dhig hatta ilaaha soo diray hadda way ka xishooday hatta wuxuu ku sameeyay samatar oo nin la jano fanka Soomaaliyeed meel dheer ka joogo ayuu dhahay tikidkiisa u geeyo xamarkeen dad kalena imaado ka rabaa ninkan in attention ku shaqeeyo waa attention secret and English nin dad attention ku shaqeeya jira waa la imaaday iyo wuxuu ka rabaa samatar intaas wadanka imaanna farmaajo u imaaday iyo farmaajaha leegeeyay ani hada qorshii farmaajaha leegeeyay hatta in soo hindisay gadaal ka ogaaday
oo lacag lagu bixiyo gadaalka ogaa adika lacag weli ma ogadin waxa media ay dadka la tuso wax cusub in ay imaadeen in la xayeysiyo in bumbuun la saaray in kor number 1 laga dhigo ayuu madaxweynaha xiisaya qaabka uu sameeyay laakiin waa in ilaawsho badan waay hadduu nin ilaawsho badan ahaa leen markuu qarax dhaco gaari gadaashiisa lagu riday la iska bixi lahaa marka Samatar ayuu wuxuu u diray wiil yar oo madaxtooyada joogo mar labaad inaa magaciisa sheego ayuu dhahay or tigidka u soo qabay Samatar ha yimaado Samatar wuxuu dhahay yaa ku soo diray farmaajo soo bax wallahi hada been idin sheega Samatar asxaabta fanaaniinta ku dhadhow tan weydiiya wuxuu dhahay yaa soo diray hada farmaajo okay Samatar waa nin Ismaaciil Umar Geel abaal badan u sameeyay waa nin guri la dajiyay waa nin qasri degan dabeen ku mashiga wuxuu mudnaa waarisi qasri la dajiyay shaqaala u joogo mishaar uu qaataa nin oday waay qabowaan ka tagaal lahay caafimaad daarta ani weydii adigu sida nin fan loogu dhaqmo ayo Ismaaciil Umar Geel oo la dhaqmay haddaysan ka yareyna $20,000 bishii Samatar iyo fanaaniintaas kale waa ku baxdaa oo ah noloshooda gaarka ah mansab lagu siiyaa Ismaaciil Umar Geel ayaa sidaas sameynaa farmaajo marka tigiduu siyaasada kale iimo pocket money male waxa male isaga taas muhiim ma aha farmaajo marka meeshu Samatar ka raadinayo oo nolol wanaagsan Ilaahay siiyay waxa la rabay cad taaliil oo 1 kilomitir madaxtooyada u jirno soo salaamo shacabo Samatar ila waqti ku dhumisid oo nolol haysto oo baasaboor haysto alxamdulillah taagan ina cad taaliil u tagi weysa ayaa ceeb ah aada uga naxay maanta aada uga qiiroodo wallahi sideed boqolaha idaawareysee hal su'aal idin weydiina hada ummad xalaalatiin idna kama jawaabi karto ninka عادي تهليل ما أنتي سمتر محس دعمان horta inta su'aasha ku weydiin caadi tahliil iyo Samatar maxay isdhamaan anuu laba la jiray yihiin same cabdi tahliil 1 kilometer stroke ku dhacay cudurka stroke ma taqaanaan naafada ilaahay ummadda Soomaaliya iyo ummadda Islaamka ka haye stroke gacan iyo lug ama gacan iyo af qof walba ku dhaca qadar ilaahay waay yaab ma leh beeshu ka dhashay beel tabar daran oo miskiin ah oo dhaqaale badan haysan waay tabar dari dhaqaaleed waay tabar dari hubka ma hadlayo reerkeygu waa tabar dari hadii uu waa dadka qaar qalad u fahmay reerkeygu tabar dari hadaa ku dhaw reerkeygu dhaqaale ma haystaan waay reer tabar daran oo ka dhashay oo aan dhaqaale fiican ka wac lahayn si jifuquuqna aad ku rideen ilaahay idin taxayay madaxweynaha Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka suuq xoolaha ma joogo بنوني أو أدرس إن أسكت صورتيني حياة الليضة عبد التهليل لا أتجوز زين أنا وعبد التهليل آدي إحنا وجينا أرنتيس أوكي سؤال شيء واحد تاع صومالية نك عبد التهليل أتجوز من حوالين الصوماليات وكل سدح عزنا كتير سدح عزو كيس تي صومالي ماذا السجى تو هايو ما تحتني ماذا صوماليات يتنعبدها عبد التهليل هايو فنان صوماليات وقالية سدح رسنيك أركواي هذيك ما حكى سوي أمام حقوق بنكرة nice question والله إن هذا وحبوه أوكي مدحوينه وحا إرسل لوجو سمين كرا أما مرسل لوجو سمين كرا فان ورك ما هاي دنيس كلكم مش قلوز إيه سمتر وورد يفناك كله صوروا رسول قال كله عن جاري بيرو سمي وحكى ها سمي إنك استول لوجو سوي إلهي عدالة دواء عبد المكان كورد حس سمتر كورد يعني كورد وقت سمتر وهالشيء بقول وحاملنا عبد التهليل أوتكتد dadka Soomaaliyeed marka cabdi tahliil oo example noo ah anaga waa aaba Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed si hadii loo fiirsan waa winin Soomaaliyeed walaalkeen ah waay hadaad kaas iska ina tirtay anaga waxa noo tahay male wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed waxa u qabanaysa male qofa ciisid farmaajo qofa ciisid ana horta ilaahay ma ciisid ku dhimaayo taas waa ku dambaaba laakiin qofa ciisid oo istaag u kacdid oo fadhiga u kacdid وأبي أحمد صومالي حب الله صومالي مكابقي ها ويكو عزيني وينكو شرفي اسكود داي فيري اسكود داي عبد التهليل دولة الصومالي فرماجي كلي مع الحلبانة ده الله فرماجي تيس واجب الصومال ماشي سجون مجوجينه رئيس الوزراء الله وقتك عاد جلسي حسن هذا سمتر ولا لو القير وقلي عبد التهليل استروك باكل عسان بويالا هاد مدة كلميادا قركرنا عقلي يعني أجرتوا dadka Soomaali uqaal bileeyhiin
waxgarad bay leeyihiin culimo diin bay leeyihiin dhaqan bay leeyihiin seenasiyaanay leeyihiin way ku eeganayaan haddii cabitali aa ku fiirsata geerida iyo istirooga gacani afkala wareega aniga maxaad ii qaban kartaa waxaa ii qaban kartaa waxaa sakaada qosan ninka aaminsan adoo cabitali kor maray in ilaahay ku soo diray ka sheekay kaas dhima leh kaas qadiid qabiilo kugu taageersan yahay isaga laftirkiisa hadduu dulmigan sii fiirsado waa nooc kale waxaan rabaa hal arin oo kale mar oo aan rabo mar walba dadku i weydiiyaan ayaan rabaa inaan ka jawaabo halkan fursad weyneen ay tahay in halkan uga jawaabo ilan cadka libaaxu meel cad buu ku goostaa mukulaashan way la dhudhuumataa mukulaasha iyadoo hilibka wadato ayay fiirinay in meeshan dad joogaan hadda hilibka way wadataa waana free markaas maanta dad iska fiir libaaxu hortiisu wax ku cunaa hortiisu wax ku gowracdaa cidna gadaal libaax markuu cunaan gadaal ma fiirsidiisaba anigu hadda fursadda dada waxay leeyihiin qarax markuu dhaco qarax waa su'aal wanaagsan oo dad badan oo halkan idaawanaya soo weydiiyaan boosku waxay qarax markuu dhaco update ayaa ka soo dhigtaaye miyaad ku faraxsan tahay qaraxa waa su'aal wanaagsan waa okay haddii aan aniga wariye ahay ama sheegta xataa wariyaha waa adaa ku dhaxtaa matiida leeda meel lagaaga fakaayo male waaba sheegtaa ka soo qabo dhaqankiisii socodkiisa aan leeyahay wariyihii socodkiisa ayaan leeyahay soo waajib igama saarna dhiigga walaalkee Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed dhiiggeeda ee hadda daatay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed inaan wiilka Soomaaliyeed ee qarax ku dhintay iyo gabadha Soomaaliyeed qarax ku dhintay hooyadeed oo Facebook igu jirto ama walaashiisa oo Facebook igu jirto inaan dhoo qarax baa huluga ka dhacay qarax baa kaaraan ka dhacay qarax baa xamarweyne ka dhacay si Facebook markay igu aragto walaalaheed u raadsato adigu waxaad aragtaa mucaarad farmaajo qarax shaqo kuma leh tankiis waa ka weyn yahay isaga bir uu horgeeyay madaxtooyada ka boq qarax wuxuu sharaf u kaga raadiyay qarax ma yaalaan isaga ba qarax amisom iyo biro maartay askar qaas ah qaraxa shabaab ka celiyaanba masaaba kaara war u hayo farmaajo war run ayaa ku sheego markii run la sheego Soomaali maxay ugu bataa farmaajo soo ma aha ninka madaxtooyada horteeda biro ugu goosay yihiin oo aeroportka markuu aado amisom la saar maxaa laga saarayaa ma rooba laga celiyaa daruur ba laga celiyaa ma barafka California laga celiyaa laga ilaaliyaa ma aha qarax shabaab laga celiyaa anigu runta idin sheega runta isku sheegno marka ninkaas ma ceeb ku noqon karta hadda qarax soo qor aniga dawladda ceeb ku noqon karta maanta wasiirka gaashaandhigga bulad buruuf wata wasiirka amniga bulad buruuf wata taliyina mas'uul bulbur iyaga shabaab iska celiye ma bakaar qarax ka dhacay shaqo kulay waa bisi qoslayane see u fikirtiin idinki qaraxan anagoon haysta anag shacabka iyo shabaabka waa wax dawladda lama jirto way burburta iyaga daftigooda shacab waay haddii qarax dhaco meel xaq u leh dadka inaa la wadaago hadda dadka su'aal weydiinaya marka ay rabaa inaan wax yar kaga sheego iga faa'iideysta maanta dad walaal nahay dad ehlan nahay dadku deegaanay bay kala leeyihiin hadana inkastoo Soomaali hal tahay dadku deegaanay kala leeyihiin si geesinimada dad kugu sheeganay nabad ninka qarax isagoo dhacay nabad iyo nolol soo qoraayo gobol ka yimid fog aniga ilaahay anoo Muqdisho ka imaaday oo saaxiibada Facebook Muqdisho u badan yihiin oo dadkayga Muqdisho u badan yihiin oo ku soo koray oo iskuul soo bartay oo cilmi ku soo akhliyastay oo ku soo guursaday ninka ilaahay ka war maxaa xamar wax ugu qoray isagoo gobol ka imaaday hadda gobolkiisa ka hadlan wuxuu ku leeyahay maana gobolkayga war iiga saacada ma nabadoon kala hadlay isagana wuxuu rabaa inuu Muqdisho aan iiga sheekeeyo wax ka jiro iyo inuu aan igu khasbaxata fiir meesha uu heer ka gaaray fiir inuu aan ii tilmaamo qaabka Muqdisho uu hadlay okay ma taqaanaan qofka soo qoro isagoo qarax hadda dhac nabad iyo nolol waxaan wala moodaa nabad iyo nolol inaa marna hooyadiis saaxiibkiis macalinkiisa dugsiga walaashiis iyo dariskiisa kuma dhaawacmo qaraxaas gobol buu ka yimid bullet proof buu wataa $5,000 oo farmaajo siiya waxa lagu siiya ani taageer iyo aamus iyo qeeli waa run isaga qarax kuma dhiman karo bullet proof buu wataa baahi ma heeso nabad uu haystaa فيريا كلمة نبض إيه نولا بنقول شيء دتك استعماله نبض هو هيستاو بولد بروف وتاع قرح شقكم لها دتك لما يهلبها جو أيه دتك يسمعها قفوا يقارنا ما أنت قفوا يقارنا كم أنت قرحها أو نبض بو هيستا سوي نولو هيستاه دتك مساكين تي حمالة يسقى كم جرو أو $5,000 وقعت دولة فرماجو وسيد أمين عامر وكله وسيد وددا أوجه وكله حمر جوجو يقربها أو $5,000 هوتيل وسيع دتك إنك هوتيل لسيع nolol buu haystaa adigu nolol ma haysatid wuu kugu korjeejeysi karaa marka nabad iyo nolol ma hanay wiil Muqdisho ku dhashay ee macalinkiisa dugsiga hilibkiisa gurbiyay walaashiis hilibkeeda gurbiyay aabihiis ku dhintay hotel Shamow hooyadiis ku dhimatay saxafi saaxiibkiisa Abbas Amar oo ku dhintay hotel Jazeera
nabad in lagu soo qori karo damiirka dadku ka xishoonade at least okay haddii uusan qofna uga dhiman xataa qaraxaas qofka reer Muqdisho wala dariskiisa ay dad uga dhinteen qasab dareenka u diidaa in dariskiisa Facebook u jiro nabad in loo soo qoro midku soo duugay waa dariskiisa damiirka u diiday waxaan ka hadlayaa logic waaya waxaan ka hadlayaa waa logic inay fahantaan isku daya kelmaddaas yani lagu sirin ninka nabad in loo soo qorayo bullet proof ku jira hotel buu $200 habeen ku saxdaa $6,000 waa $5,000 cuntadiisu waay iyo shidaalkiisa iyo jaadkiisa waay ma shaqeeyo nabad in nolol bis soo qoraa kaasa nabad in nolol kugu soo qoraa ka war haddaad ku kadsoontid ka war oo ku sirmatid oo aad dhahday aniga nabad in nolol ta kadib aad soo doqon matid soo dabaal matid adiga 2 sano dabaal soo matid marka nacas ah fiiri qofka aan nabad in nolol soo qoraysiyaa waay waa ninkii wasaaradda gaashaandhigga markuu cusbaa seexad jiray aroos ma ku jiray wixii loo seexad jiray micneeda waa ninkii dhigi jiray qarax ma jiro waa ninkii dhigi jiray diyaarada ma raacay iyo safar hadda isaga iyo shimbiraha ayaa dulis badan ninkaas ma atee Cabdiqaadir Boos iska ilaaw waa kala aragti doonaa karnaa laakiin waxaan ku weydiiyaa logic adiga fiiri xisaabso Cabdiqaadir masaxsiya ma waalayahay adiga ma qawaalan wax uun aan suugo meel dhex ninkan waa fashilay ummadda Soomaaliyeed إلهي بدل غير قبها وسال نكان واعي وحتى فشل ما حتى حصل شيء صونين إن أدير كي معها وفشل مي أنا ما ده هاي مفشل مي أنا ما نقع واحد لا تكرر مقدسه قبيل ما يقانن كو قبيلة شكت أدير كي هدوم مدحين نقول فشل وافشل ما كله أنا كم ده هاي أدير ده كان كذا شكولي أنا ده كسر ذكرى إيجا بحس شكور سوق جديد بقى حدي كو جرت هوية فرماجة جديدة فرماجة ده كو بندت سي وهوية هاي اللي وانا دار الله باتني أفر عدك لقى سي انت كلا دقلي مرفله در iyo hawiyaasi codadka iyaga hadal naceen adigu ma nagu qasbay marka ka shalay diidaneed oo anaga dooranay waa nacnay maxaa nagu qasbay dabada nagu gelinay oo $5,000 umad Soomaaliya ugu xishoon laada 5,000 oo dhibil oo naar ay aqra ku noqonay dadka Soomaaliyeed dhiig ka marka tira nabad iyo nolol ma ku diidanay laakiin wax xaq u leedahay marka caasimada nabad ka dhigatid oo waxay ku daadisid oo shabaabka iska dhicisid markaas nabad iyo nolol soo qor laakiin dadkii uu dhimanay seenabad in lagu soo qoraa seenabad in lagu soo qori kara dadkii uu dhimanay seenabad in lagu soo qori kartaa wasiirka gaashaandhigga wasiirkii amniga taliyay booliska taliyay militariga taliyay ciidanka oo bullet proof ku dhuumanayo oo nin bullet proof ku dhuumanayo miyaa adi amnigaada sugi kara su'aashida logic isweydii nin aan u tacsiideynaynin ciidanka Soomaaliya markay dhintaan oon kala jecleen oo laba Etoobiyaan hadii lagu dilo qabri dahaare ama Addis Ababa تويتر كوسو قرابة كحومه تعسدراي سي أديك الدولة ديس وتهاجر كرتا دولة نمدو ما هو فرماجي غير إكاليين معها أنا له ما هبين كسلة في سوقلي سيدنا نوال ما هي سوقلي لا يفوح هي سوقلي وواحد أنا مسؤولية سر دل كان وإبه هي دل كان فرماجي غير إجمعي أنا دل كي جواي هدوها جايين وناجيس أنا كشقي جواي ده هدو واحد ما حتى فيري واحد كي له ninkii nabadda ay nolol ahaa ee dadkii go'ay hilbahooda nabad in nolol soo qoraa ku jeesay dacwo sii qaba oo maxaa loo soo qoraa qarax ninkaas hadda inuu imaamul rabo hadda fahmi kartiin warkeeda kaas iyo baac noocaas oo kale anigu aragti noocaasa ima soo bixin karaan dadku waxay baloogaan dadka caayo dadku waxay baloogaan dadka ka aragti duwan dadka ma baloogo laakiin balan waxaan kaga qaaday inaan baloogo qofka ku jeesay dhiigga ummadda muslimiinta iyo dadka Soomaalida Muqdisho degan baloog waa kaas saacada la ay firkay farcay ay waxa rad samay ay meel dulesh qofka ma gasho ka ani ma laaga u saaraba laakiin jees ummadda Soomaaliyeed dhiig kada war dadka si hadii loo eegan dadka reer Muqdisho xun boosaas ma tii kartaa qarax inta ka dhacna wadin nolol soo qortaa boosaas adii war ugu xiraa xaq u leeyin karti iyo sharaf iyo qiimo ay ku leeyin dadka halkaas degan waay hargeysa ana hawiye inta tago oo rag hawiye intay qarxiyaan ama qarax ka dhac nabad in lagu soo qori karo dadku tacsi ku jiro khara laga dilay hatta xarig ma baa way ku saxsan waa in lagu amaano kismaayo hadduu qarax ka dhac nabad in lagu soo qori kartid waa qalad fiila hatta ma soo qori kartid nabad in hadda New Zealand qarax ka dhacay dadka New Zealand qaar ma soo qori karaan nabad in ma soo qori karaan peace and life inta tala حتى هذا سوقري سلا ساعة تعسيد حتى ضعف سوقري ضمير حما إن الله ورنوع عسى نبض إنه سوقري هسقو هذا السلام عليكم ورحمة الله